السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan uga hambaliyeenayaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Burco. waa aqoonyahan kulay dalka u soo baxay marka waxaan leeyahay hambaliyaan leeyahay. anigu waxaan ka mid ahay deemanka waalidiintan maanta ka mid ah. waalidiintan ka mid ahayo waxa arkaysaan waa hadiyadii weey. marka waxaan is leeyahay haday soo saari waayaan shidaal markay ugu yaryiin hadhow taa tiraa war hadiyadii noo keenan iyo dhowr qof baan u sidaa laakiin waxaan is leeyahay tiraa hadhow war noo keenan hadiyadii day soo saari waayaan wax soo saarkoodu muuqan waayo. marka hambaliyaan leeyahay dhammaan ardayda ka qalin jabisay kuwa Burco iyo dhammaan intii gobolada kale ka qalin jabisay. aad iyo aad u hambaliyeenayaa dalkeena hooyo oo inay u soo hiloobaan dhalinyarada iyo waayeelka bulbujooga oo dalkooda ay jeclaadaan. waa garanaysaan ismaan hawshan uu ka wada halkan iyo dadka iyo dhulkeenu dalxiisku leeyahay iyo wanaagiisa in ummadda la tuso. aad iyo aad baan u soo dhawaanaa ku hambaliyeenayaa waxaana leeyahay ku soo dhawaada dalkiina. waan soo dhaweynayaa shaqada oo Mr. Ismaamado. insha Allah waan la shaqeyn doonaa. maanta halkan waxaa jooga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qalin jabintii jaamacadda Burco u yimid isagana waan soo dhaweynaynaa. insha Allah bidnillaahi kariim halkana in badan baan ku kulmi doonaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. aad iyo aad baan u faraxsanahay. marka hore waxaan ugu mahadnaqayaa Allaha weyne si nabad ah inoogu fuliyay hawshan. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ardayda oo aniga xiise gaara ii leh saad u ogtahayba gobolkan waa gobolka aan ka soo jeedo. marka waxa weeyaan inaan kala qayb qaato qalin jabinta dufcadda 12aad ee jaamacadda Burco. jaamacadda Burco way nooga duwan tahay jaamacadaha kale annaga waayo waxay ka soo jeedaa gobol qiimo leh oo ay ku xadhan tahay xusuustii iyo halgankii loo soo maray dalka Soomaaliland oo dhan. waxaan leeyahay waxaan ugu mahadnaqayaa kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qiimeyn gaar ah iyo culays soo saaray inuu la qalin jabiyo caruurtiisaas jaamacadda Burco. waxaan aad hambaliyo ugu dirayaa jaamacadda Burco oo isku duuban iyo gudoomiyahooda iyo madaxweynaha jaamacadda dhiinka iyo macallimiintaba. waxaan jaamacadda oran lahaa warday gobolka ka soo baxdeen waa gobol qaaliyo awal gobolkii ragaalay laakiin maanta madaxweynuhu dumarkiina uu ku daro gobolkii habla wanaagsan iyo nimada wanaagsan weeyaan haddii inoo wada leeyahay gobolkii. marka waxaan leeyahay haybada iyo waxbarashadii aad soo barateen biidnillaahi kariim dalkiina oo dhan qaar ku tabca oo ku shaqeeya oo dalka inta kalena wax bara ayaanu idinka filaynaa oo aan idinku ducaynaynaa in Ilaahay cilmiga idinku gargaaro. aad iyo aad baa u mahadsantiin. hambaliyo. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waa madal qaaliya aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa ardayda jaamacadda hambaliya baan leeyahay iyo gudoomiyaha jaamacadda dhammaan macallimiinta iyo ardayda isku wadaray dhamaantood aad baan u hambaleynaynaa gaar ahaan hablaha qiimaha badan ee jaamacadda Ducfid maanta ay ka baxday 12aad ee aad u tirada badan ee maanta habinamadii department ku laba laabmay aad baan u hambaleynayaa dhamaantoon ardayda waan hambaleynayaa. maanta maalin qaran baynu joognaa. maanta halka waxa ka soo qayb galay isaguna oo qaaliya oo qiimeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo safar dheer u soo galay soo xafladda hambaliyada caruurta ardayda qalin jabisay inuu jaamacadda Burco uga qayb qaato. waxaan dhamaantood hambaliya baan leen madaxweynaha soo dhaweeyeen aad baan ugu mahadnaqinaa dhammaan hambaliyada ardayda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله dareenkaygu aad buu fiican yahay adeerow dawaa runtii waa wax lagu farxo intaasoo ardayo qalin jabisay. marka ardayda waan hambaliyeenayaa dhammaantood waxaan leeyahay hambaliyo mustaqbal fiican baa leedihiin. mustaqbal fiican baan u rajaynayaa. waxaan u rajaynayaa in dariiq cusub la qaado oo waxbarashadii ay dhalinyaradu markay jaamacadda dhameeyaan ay shaqada sugi jireen ee guryaha dib ugu noqon jireen in laga koro oo dhalinyaradu ay bilaabaan corin iyo inay ka fekeraan inay iyagu shaqo abuuraan. runtii waa ogtihiin oo waddankeena dhaqaalihiis uu yar yahay laakiin haddana haddii la dadaalo boqolaal mashruuc oo la alifi karo oo laba arrimood baa loo baahan yahay oo dhalinyaradu aqoontii ay barteen inay ka faa'iideeyaan iyo inay ma garanaysaa si wada jira ay wax u sameeyaanoo intii isfahmaysa ama intii heshiin karaysaaba ay surursato oo ay ka wada fikiraan mashaariic
dabadeedna markaasay cid caawisan helayaan inta aan dee fikradaha qabinna khayr badan iyo nasiib wanaagsan baan u rajeynaya maasha allah aad baad mahadsantahay xildhibaan بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد maadaama aan ahay dhibaanka soo jeeda waxaan ku dhahdaa gobolka Togdheer waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa marka koowaad ardayda jaamacadda ka qalin jabisay kulliyadii 12aad ah ee jaamacadda soo saarta aad iyo aad baan u hambaleynayaa waxaan leeyahay waxba barateen wixii aad barateen waxbarashadu ma dhamaato waxaan idin rajeynayaa inaad halkaa ka sii wadaan aad iyo aad baa mahadsantihiin